بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. waxaan kusoo jirnay tafsiirkii suurat xashr aayadda saddexaad ee suurat alxashri uu dersigeenu ka bilaabanayaa. waxaa soo haynay alla inooga soo warramay qisadii banu nadiir iyo dhibkii loo geystay ku dhacay kadib markii ay ballantii jebiyeen oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ay damceen inay dilaan ciidan markaa culusoo muslimiinta kusoo baxeen dhufaysyadoodiina la hareereeyey muddo 6 maalmooda kabacdina ilaahay subxaanahu watacaala meel kale iyaguna ay isku halaynayeen dhufaysyadaas laakiin alle qalbigooda rucbi ku tuuray halkaasna ay isdhiibeen guryahoodii ay kharaabinayeen oo gacmahooda ku kharaabinayeen iyo gacmaha mu'miniinta baa alla inooga soo warramay subxaanahu watacaala hantidoodiina ay u gacan gashay mu'miniinta ay u gacan gashay. alle wuxuu leeyay walowlaa an kataba allaahu alle wuxuu warramayaa sidani qadar bay ahayd in la raro laakiin haddii aan qadarkaasi jirin cadaab kaloo adduun oo xoog leh baa ku dhici lahaa oo ah in la laayo. alle wuxuu leey walowlaa haddaanay jirin an kataba allaahu inuu alle ku qoray oo qadar ahaan loogu qoray calayhim dushooda aljalaa'a rarid lacadabahum wuu cadaabi lahaa alle fi dunyaa adduunku ku cadaabi lahaa oo dee waa la layn lahaa dhammaantood sidii banu qayda loo laayey ee loo jirid gooyey oo qabiilkii kale yuhuuda meesha deganaaya. walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhirana cadaabu naari naarta cadaabteeday leeyihiin. adduunka markaa dee wixii dhacay dhace oo rarid la raro ayaa alle subxaana watacaala uu qadaray tiibaana ku dhacday waxaana la yidhi wixii awrtoodu ay qaado unbaa loo ogolaaday inay ku baxaan saasayna ku baxeen. laakiin alle subxaana watacaala haddaanu qorin inay la rarayo cadaab baa mudan lahaayeen oo waa la layn lahaa wey. markaa taasina waa qadarkii u qornaa. sidoo kale waxa la yidhi kitaabkii towraad ahaa ayaa waxaa ugu qornaa aljalaa in la rari doono oo waxay ahaayeen sibti ka mid a asbaati 12 sibti ee banu israa'iil sibti aan iyagu la rarin oo qaxi ku dhicin weligood bay ahaayeen. markaa qaxoodii baa kan looga dhiga saasa marka alle uu leeyay walowlaa haddaana jirin an kataba allaahu inuu alle ku qoray calayhim dushooda aljalaa'a rarid in la rarayo lacadabahum uu cadaabi lahaa fi dunyaa adduunka oo qatli iyo dil ayay mutaysan lahaayeen la laayo. walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhira dhexdeedana cadaabu naari naarta cadaabteedii bay leeyihin oo muxaqaq oo la hubo ayay geli doonaan wey. daalika sababtu waxa weeye bisababi annahum iyagu shaaqu llaha ilaahay bay khilaafeen wa rasuulahu rasuulkiisa ayay khilaafeen. waman qofka yushaaqi llaaha alle khilaafa fa ina allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu mid ay daran tahay weeye rabbi subxaana watacaala. saasuu markaa rabbi u ciqaabaya oo ciqaabtan khilaafka ay alle khilaafeen iyo rasuulkiisa baa in cadaabkan iyo ciqaabtan adduun iyo aakhiraba ay galaan iyo dulligan u sababtay weeye raasuu sheegaya rabbi subxaana watacaala. maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaahi waliyukhziya alfaasiqiin. halkana alle subxana watacaala wuxuu ka warramayaa dhirtii iyo beerihii la rarayey la googoynayey la gubayey baa alle subxaana watacaala halkana uu ka warramaya. wuxuu leeyahay maa qaطactum wixii aad goysaan min liinatin maa qaطactum waxaad goyseen min liinatin oo timir ah aw ama taraktumuuhaa aad kaga tagtaan calaa usuulihaa qaa'imatan xaalay tahay mid ku taagan calaa usuulihaa jiriddeeda oo jiriddeedii u taagan aad ka tagteen fabiidni illaahi ilaahay idankii iyo fasixii bay ahayd waliyukhsiya iyo inuu hoojiyo alfaasiqiina kuwa ilaahay daacadiisa ka baxay oo kuwan ah gaalada ah inay hoojiyo oo ay waxay ka naxaan oo ka murugoodaan oo ka xumaadaan hortooda laga tuso oo dee dhirtoodii la gurayo oo la googoynayo iyo hantiday kusoo tabcayeen sanadaha badan iyo qurumaha oo la gurayo la googoynayo oo dab la qabadsiinayo waxyaabahaasi waxay keenaysaa inay dulloobaan dulli iyo murug iyo argagax ayay ku keenaysaa wey. taasaana alle subxaana watacaala uu waxa weeye u fasaxay in la googooyo geedahaas. halka markaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in la gooyo ihaanatan lahum iyo sababta loo goynayo ee loo gooyey geed timireedka horta liintu waa geed timireedka min liina
marka mufasiriinta qaar waxay dhahdeen timirta cajwada mooyaane inta kale baa liina la dhaha, qaarna waxay dhahdeen maye cajwada iyo barniga mooyaane inta kale baa liin la dhaha. laakiin sida ibnu jariir iyo mufasiriin kale ay qabaan jamiicu nakhli geed timireed oo dhan baa liina ah. marka waxaa sababta loo gooyey waxay ahayd kow irhaaban wa ircaaban liquluubihim, in la argagax geliyo oo qalbigooda la cabsi geliyo, oo dee dhirtii iyo goyntooda iyo waxaasi cabsi iyo murugeyn bay keenaysaa. arrinta labaad waxay ahayd de markay ku gabadeen muslimiinta ay manjaniqye iyo wax ku soo tuurayaan, iyadana in la gooyo si aanay ugu soo gaban oo muslimiinta aanay u waxyeelayn. sidoo kale muslimiintu marka ay doonayaan inay dagaalamaan, meelihii ay ka dagaalami lahaayeen geedaha timirta iyo waxaasaa ku xaniban, buwayra meeshii la odhan jiray weeye, kadibna way goynayeen say u banaystaan oo ay hore ugu sii socdaan. arrintan jawaab weeye oo markii dee geedaha la gooyey ayay soo qayliyeen oo waxay yidhaahdeen maxamedow soodigii fasaadka nahin jiray ee odhan jiray dhulka yaan la fasaadinin, adigii baa fasaad wada wax kharibay, ku qayliyeen. maasa alle subxana wataala wuxuu leeyahay tani fasaad maahe ilaahay idankii weeye, fasax weeyaanoo ujeedooyin laga leeyahay oo ay xaqiijinayso iyo maslaxada ay xaqiijinayso ayaa jira. mar haddii wuxuu maslaxada xaqiijinayana fasaad maaha. waxaa kaloo leeyahay iyaga jawaabtoodii maahe mu'miniinta ayaa sida imaam mujaahid uu qabo, mu'miniinta ayaa isu diiday oo yidhi qaarkood ba qaar kale ku yidhi war ha goynina ka daaya geetimireedka, inamaa hiya maqaanimu lmuslimiin, waa qaniimooyinkii muslimiinta oo qoladan de waa laga adkaanaya hadda la saaraya. marka waxaanay muslimiintii qaniimo u tahay waa hanti muslimiine yaan la goynina daaya. kadibna qur-aankaa soo degayoo isagoo qoladii goysayna u rumaynayo oo le waad saxan tihiin oo ilaahay idankiisii baa ku goyseen, qoladii ka tagtayna le waad saxan tihiin oo in la daayo oo waxa weeye mu'miniintu ku intifaacaan waa sax. saasaa alla u leeyahy maa qatactum wixii aad goyseen min liinatin oo geetimireeda aw ama taraktumuuhaa taraktum aad ka tagteen haa geetimireedkaas qaa'imatan xaalay tahay mid ku taagan calaa usuulihaa jiriddeeda mid ku taagan oo qotonta, fa biidni illaahi ilahay idankeeda wey, ilahay idankiisa wey. taad goyseenna waa ilahay idankii, taad dayseenna waa ilahay idankii. waliyukhziya iyo alla inuu hoojiyo alfaasiqiina kuwa daacada ka baxay ee faasiqiinta ay indhahooda ku arkaan dulli oo ah hantidoodii oo la googoynayo oo la kharibayo. wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab. halkana alle subxana watacala wuxuu ka warramaya maalkii iyo hantidii see loo gelaya ama xukunkoodu muxuu yahay. markaasaa la tilmaamayaa muslimiintu waxay yaqaaneen qaniimada oo inta 5 meelood oo meel loo qaybiyo khumus cid gaara la siiyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maamulo, 4 meeloodna ciidanka loo qaybiyo soo dagaalamay mujaahidiinta ah in loo qaybiyo, oo qofkii lugeynayana 1 saham la siiyo, qofkii tiknikadii faraska watayna waxa weeye la siiyo 2 saham la siiyo. marka tan alle subxana wataala wuxuu ka warramaya tan tii oo kale maahe waa fay baa la yidhahdaa, qaniimo maaha. qaniimadu waa ta dagaalka lagu qabsado lagu helo, tan laakiin fay baa la yidhahdaa. fayguna waa alfayu luqatan arrujuucu, waa soo noqod oo waxani maal muslimiintu ay xaq u lahaayeen oo gaaladu inay mutaystaan oo ku istifaacaan aanay ahayn baa ilaahay ka soo celiyeyoo si dhib yar buu gacantii muslimiinta ugu soo noqday. marka waa fay ilaahay baa soo celiyey oo wixii aan dagaal loo gelin ee aan hub badan loo qaadan ee aan farda loo kaxayn bay noqonaysaa. sababtoo nimankani dee way is soo dhiibeen, waa la go'doomiyey, xisaar baa lagu sameeyey, kadibna way is soo dhiibeen, gacmahay taageen, fay buu noqday, soo xarooday. taas markaa xukunkiisu muxuu yahay? fayga waxaa la mariyaa meesha khumuska la mariyo, xoolahoo dhan laa yukhamas, lama khumusaynayo ee meeshii khumusku mari jiray ayaa xoolihii o dhan hadda wada marayaan. alle markaa taas ka warramayaayo marka hore waxaa la sheegayaa xooluhu waxay yihiin inaanay qaniimo ahayn baa alle sheegaya. markaas wuxuu leeyahay wamaa wixii afaa'a allaahu alle u soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa minhum gaaladaa xaggooda uga soo celiyay ahlu kitaabka ah, famaa awjaftum umaydaan ururin calayhim dusheeda min khaylin fardo iyo walaa rikaabin gaadiid awra midna umaydaan ururin. rikaabna maydaan samaynin, khayl iyo fardana maydaan ururin. awjaftum marka ay xashadtum maydaan soo ururin oo maydaan soo kaxayn fardo iyo gaadiid kale toona. yani meel lagu dagaal galay farda loo cirbiyey oo gaadiid loo kixiyey oo lagu dagaalamay maaha. famaa awjaftum maydaan ururin calayhi dushiisa min khaylin fardo walaa rikaabin iyo gaadiid kale toona
laakin allah yusalitu wuxuu ku sallidaa rusulahu rusushiisa calaa man yashaau ciduu doono. marka qoladan ilaahay malaa'ig buu usoo dirayoo rucbi qalbiga kaga tuurtayoo alle uu ku salliday. wallaahu alle calaa kulli shayin wax kasta qadiirun alle awoodo weeye. marka qudradiisa iyo awooddiisa baa alle subxaanahu watacaala uu ku qahriyey oo ku dirqiyey. cidina kama adkaato, cidina isma diido, wax walbana alle subxaanahu watacaala isagaa ka adag wey. marka arrintan waxa weeye cadowgii lamaydaan dagaalamin. lam yuujif ilmuslimuuna calayhi bikhayl ay lam yuqaatiluu alacdaa fiiha. cadowgii umay dagaalamin meeshaas, lakin ilahay baa rucbi iyo argagax kale ku tuuray wey. ilahay awooddiisa wey. wallahu calaa kulli shayin qadiir. ilahay wax kasta waa awoodaayo awooddiisiiba markaa xoolahan kusoo celiyey, iyagiina uu ku baabi'ey. maa afaa'a allahu calaa rasuulih. xukunkii markaa xoolaha waatan. marka hore xoolihii waa la sheegay inaanay kuwii lagu dagaalamay ee faras lug iyo faras loo galay ee mujaahidiintu ay kusoo dagaalameen oo xaqa ku lahaayeen inaanay ahayn alle waa sheegay. maxaa kale haddana halka wuxuu ka warramaya alle subxaana watacaala xoolaha markaa see laga yeelaya sidii qaniimada mar haddaanay ahayn. markaa tii baa alle ka warramaya. wuxuu alle yidhi maa afaa'a allahu wixii alle u soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa min ahli lquraa qaryooyinka ehelkeeda uga soo celiyo. dadka meelaha degan tuulooyinka gaalada lagu duulay wixii alle uga soo celiyo iyadoo aan lagu dagaalamin falilaahi. markaa tan keliya maaha, banu nadiir keliya maahee xukunku waa xukun caama min ahli lqura, si guud baa loo bixinaya. falilaahi ilaahay baa iskale, walirasuuli rasuulku u sugnaaday, walidilqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibka aalubeytkiya nebiga qaraabadiisiiya baa iskale, walyataamaa agoontii baa iskale, walmasaakiini masaakiintii baa iskale, wabni sabiili musaafirkii baa iskale. dadkii musaafiriinta ahaa ee jidka hayey ee xooluhu ka go-een ee hantidu ka go-day iyo sahaydu kuwaasaa iskale oo la siinaya. maxaa alle saa u yeelay oo xoolaha kuwaa loo siinayaa? kay si laa yakuuna aan u ahaan maalku duulatan mid dhex wareega bayna alagniyaa'i kuwa akniyada ah hodankaa dhexdooda ee minkum idinka mid ah. yani xoolaha akniyada uun ku dhex wareega oo iyagu siiyaan wax kala iibsadaanoo dhex mara inaanu noqon ee hoos u daadego oo fuqarada iyo masaakiinta iyo musaafiriintii iyo uu gaadho agoontii dadkii jilicsantaa uu gaadho iyo masaalixdii muslimiinta. saas baa alle subxaana watacaala ugu talagalay. wamaa aataakum wuxuu idin siiyo alrasuulu rasuulku fakhuduuhu qaata, wamaa wixii nahaakum uu idinka nehiyo canhu xaggiisana fantahuu ka hadha oo ka joogsada. waataquu llaha ilaahay ka baqa, ina allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabtiisu mid ay daran tahay weye rabbi subxaana watacaala. oo dee haddii amar rasuulka la qaadan waayo warkiisa oo la khilaafo oo wuxuu ka reebay laga hadhi waayo, markaa dee ciqaabtii baa soo degeysa, waa la isciqaabaya. taa markaa iska ilaaliya wey. halkan markaa alle subxana watacala wuxuu ka warramay qaabka dee loo qaybinayo iyo sida ay noqon doonto. horta arrintan taladeeda iyo hawsheeda nebi maxamed baa looga dambaynaya calayhi salaatu wasalaam. falilaahi walirasuul, ilaahay baa leh, rasuulkaa leh. marka allah oo masaalixdii guud ee caamka ahayd baa lagu bixinaya. rasuulkuna wuxuu ka qaadanayay quudkiisa nafaqata sana, hal sano biilkeed buu ka qaadan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. wixii hadhaa jacalahu fi rukuraaci wasilaaxi wa fii sabiili illah, hub iyo jihaadkii iyo wuu ku bixin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. marka wuxuu isagu leeyahay lilaahi walirasuul markii la yidhi falilaahi walirasuul. marka dee waxaa lagu bixiyey rasuulku quud sana intuu ka qaato oo reerkiisa biil sana intuu ka qaato ayuu wuxuu ku bixinaya wixii baaqiya masaalixdii iyo muslimiinta iyo jihaadkii iyo gaadiidkii waxaas ku bixinay iyo hubkii. waaya qolyahan kale la siiyey la leeyahay lidilqurba walyataama walmasaakiin. qurbaagu waa qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo bani haashim iyo bani mutalib weeye. oo iyaga sadaqada iyo sikada lama siiyo, sidaa daraaddeed faqiirkooda waxaa laga siiya khumuska wax laga siiya. xoolaha fayga ana waxbaa laga siiya. tan hadda alle subxana watacaala uu halkan ku sheegay. marka qolyaha kale la midkaa reer bani cabdimanaaf ma soo gelayaanoo markii reer bani haashim shicbigii abu aalib lagu go'doomiyey waa tii ay la galeen banu mutalib. marka nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuu sheegay banu mutalib inaanay ka faaruqin laa fi jaahiliyatin walaa fi islaam. jahiliya iyo islaam toonna mar walba ay la socdeen. ahlubeyt bay saa ku yihiin. marka saasa marka alle subxana watacaala inooga warramayaa xoolihii iyo say u baxeen. waxaa aayadda ka muuqata oo ku jirta kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum.
marka alla uu leeyahay subxana wa tacaala waa xikmadda loogu talagalay in maalka loo daadejiyo. waxaa ku jirta qadiyad ah dhaqaalaha ku saabsan oo maalka iyo hantidu inay ummadda wada gaadho oo dadka aqniyada ah keliya aanay noqon dadka wax kala iibsanaya ama hantida isku bedelanaya ee hantidu ay hoos u daadegto oo fuqaradiina ay gaadho kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaa'i minkum. aayadda qaybta dambe alla uu leeyahy wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu. aayaddaas waxay tilmaamaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la ateeco. wixii uu rasuulku sharciyeeyo waa ilaahay baa sharciyeeyey. man yutic arasuula faqad ataaca allah. qofkii rasuulka ateeca ilahay buu ateeca. marka arrintani ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam laba masder weeye oo ilahay subxana sharciga laga qaadanayo. marka qofkii diida rasuulka ee yidhaahda waxyiga rasuulka qaadan maayo ama xadiiska qaadan maayo ee qur-aanka keliya ay ugu filan, qofkaasi cidluu derderaya, qarduu jeexaya. haweeney baa waxay u timi cabdillahi bn mascuud masay tir waxay soo gaadhay cabdillaahi ow inaad nahisay alwaashimata walwaasila. haweeneyda ta isturturuqda iyo ta timaha dheeraysata iyo buruukada saarata iyo waxyaabahaas inaad nahiday ama riwaayadka waxay inaad lacnashay. rasuul uu yihi ashayun wajadtahu fi kitaabi illaahi aw can rasuuli illah. waxay tihi ma kitaabka ilaahay baad ka heshay? markaasuu yihi balaa wajadtuhu shayun wajadtuhu fi kitaabi illahi wa can rasuuli illahi sal slam. waa waxaan kitaabka iyo rasuulkaba ka helay. markaase waxay tihi wallahi laqad tasafaxtu maa bayna dafatay lmusxaf famaa wajadtu fiihi aladii taquul. musxafka labadiisa geesba waan akhriyeyoo meesha waxaad sheegayso kuma arag oo kuma jirto. markaasuu wuxuu ku yihi famaa wajadti fiihi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu. oo miyaadan ku arag aayaddaas? markaasay tihi haa bala. markaasuu wuxuu yihi rasuulkaan ka maqlay isagoo yanhaa can alwaasilati walwaashimati wannaamisa, isagoo nahinaya timaha dheeraysta iyo turturturqda iyo waxyaabahaasoo dhan iyo taisdaldaloolisa. markaase waxay tihi falacalahu fii bacdi ahlik, reerkiiga qaar ka mid a inay saa sameeyaan baa laga yaaba. markaasuu yihi kaalay oo galo bal soo eeg. markaasay soo eegtay. markaase waxba ma soo arag, maa ra'aytu ba'san, waxba ma arag bay tiri. marka cabdillahi ibn mascuud wuxuu daliishanayaa wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu. aayaddan waa qur-aan. waxay qur-aanku inoo sheegay rasuulku wuxuu sheego o dhan in la qaato. marka qofkii rasuulka xadiiskiisa qaadan waaya qur-aankiina muu qaadane la soco, qur-aankiina muu qaadan. saasa marka alla uu leeyahay wallahu ina allaha wattaqu llaha ilaahay ka baqa ina allaha alla shadiidu lciqaabi, ciqaabtiisu mid ay daran tahay wey. lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana. halkana alla subxana wa tacala wuxuu ka warramayaa fuqaraa'u lmuhaajiriin, fuqaradii muhaajiriinta dadka fayga la siinayo ee ku habboon ee leh buu alla tilmaamaya. lilfuqaraa'i fuqaradii ayuu u sugnaaday oo la siinayaa faygu almuhaajiriina muhaajiriinta ahaa ee soo hijrooday aladiina kuwaasoo ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahoodii laga soo saaray wa amwaalihim xoolahoodii hantidoodii laga soo saaray yabtaquuna iyagoo dalbaya fadlan fadli iyagoo dalbaya min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday waridwaanan iyo raalli ahaansha alle dalbaya wayansuruuna allaha ilaahay u hiilinaya warasuulahu rasuulkiisa u hiilinaya ulaa'ika kuwaasi hum iyagu assaadiquuna kuwii runta sheegayay wey oo iimaankoodu uu xaqiiqada iyo runta ahaa wey. marka halkaas alle subxana wataala wuxuu tilmaamay fuqarada bal mutaysanaysa fayga kuwa yihiin. markaasa waxaa lagu bilaabay dee dadkii muhaajiriintii fuqarada ahaa ee ilaahay dartii guryahoodii iyo hantidoodii uga soo dhaqaaqay. wixii ay jeclaayeen ee guri ahaa ee hanti ahaa ee deris ahaa ee deegaan ahaa ee maal ahaa ka soo dhaqaajiyey, ilaahay dartii uga soo dhaqaajiyey. arrintaas dhinaca kalena ilaahay u hiiliyey oo nasri iyo hiil galay. marka arrintaas labaduba waxay tusayaan waa fadli iyo dheeraad ay leeyihiin bay tusaysaa oo ah iimaankoodu inuu run yahay. ulaa'ika hum saadiquun, kuwa runta sheegaya wey. oo maxaa leeyahay run bay sheegayaan? waxaa loo leeyahay dee ficilkoodii baa iimaanka qalbigooda ku jira rumeeyey. haddaan iimaanku dhab ka ahayn maxbuubkoodii waxay jeclaayeen kamay dhaqaaqeen oo fuqara may noqdeen iyagoo hantiilayaala. dhinaca kale dee nasriga iyo hiilka ay alle iyo rasuulkiisa u hiilinayaan iyana way kutusaysaa. marka haaulaai saadaatu lmuhaajiriin weeye. saasaa marka alle subxana wa tacala uu ammaanay, iyagaana lagu bilaabay hadalka. qolyada labaad baa ilahay markaa sheegaya, iyagana waa ammaanaya, waa ansaartii. markaasuu alle wuxuu leeyahy waladiina tabawa'u daara, waladiina kuwa ayaa iyaguna mutaysanaya tabawa'u degey addaara, daarta degey, waa daarulhijra, waa madiina meeshii loo soo hijroonayey. waliimaana iimaanka degey min qablihim iyaga hortood. oo dee in badanoo muhaajiriinta ka mid a ansaartaa ka iimaan horreysayoo muhaajiriintu dee intaa hijradoodu marba qayb baa soo hijroonaysay.
marka ansaartii iimaankana uga horreeyey in badanoo muhaajiriinta ka mid ah marka halkaasi waa ammaan labaduba la ammaanayo yuxibuuna way jecel yihiin man cidda haajara usoo hijroota ilayhim xaggooda walaa yajiduuna heli maayaan fii suduurihim laabtooda ka heli maayaan xaajatan wax xaasidnimo ah iyo xaqdiya mimaa waxa uutuu la siiyey muhaajiriinta fadliga iyo dheeraadka alla uu siiyey ee iyaga ansaarta ay dheer yihiin kuma xaasidayaan oo wax dhiba kama dareemayaan laabtooda wayu'hiruuna way doorayaan oo hantida iyo maalka iyago waxay u doorayaan oo siinayaan calaa anfusihim wayu'hiruuna way ka doorayaan calaa anfusihim naftooda oo muhaajiriinta ay isu dhaafinayaan walow kaana haba ahaado bihim iyaga khasaasatun baahi daranibaha u hayse yani iyagoo xoolihii u baahan ayay intay isdhaafiyaan oo naftooda dhaafiyaan ayay walaalahooda muhaajiriintaa siinayaan waman qofka yuuqa laga ilaaliyo shuxa nafsihi bakhaylnimada naftiisa oo dee mid nafta ku jirta weeye oo naftaa wadata nafta bakhaylnimada ku lamaan ee ku abuuran qofka laga ilaaliyo fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwii liibaanay weeye oo liibaan oo dhan halkaasay ku jirtaa halkan markaa alle subxana wa tacala aayaddan wuxuu ammaanay ansaar baa la ammaana oo alle subxana wa tacala fadligooda ayuu sheegayaa markaasa waxaa la tilmaamay sharaftooda iyo fadligooda iyo xaasidnimo la-aantooda iyo weliba iithaarka iyagoo baahan ay doorayaan oo hantidii isdhaafinayaan marka tabawa'u daara waliimaana baa lagu ammaanay daartiiyo iimaankii bay degeen daarulhijra wey muhaajiriintana in badanoo ka horeeya in badanoo muhaajiriinta ka midna waa ka hor islaameen sidaa daraaddeed bu cumar radia allahu canhu wuxuu lahaa daaranadiisii waxaa ka mid ah amiir almu'miniin wa uusiya alkhaliifata bacdii bilmuhaajiriina alawaliin khaliifada iga dambeeya waxaan u dardaarmaya muhaajiriintii hore an yacrifa lahum xaqahum wayaxfada lahum karaamatahum xaqooda iyo karaamadooda inuu ilaaliyo wa uusiihi bilansaari khayran aladiina tabawa'u daara waliimaana min qabl ansaartiina waxaan u dardaarmayaa inuu khayr iyo wanaag kula shaqeeyo oo khayr u dardaarmo kuwii daarta iyo iimaanka hore u degey an yaqbala min muxsinihim wa an yacfuu can musii'ihim kooda wanaagga sameeya inuu ka aqbalo kooda xumaanta uu ka dhacana inuu cafiyo ayaan u dardaarmaya xadiiska imam bukhari baa warinaya dardaarankii cumar buu ka mid tahay marka fadliga ansaar lagu sheegay waxaa ka mid ah yuxibuuna man haajara ilayhim dadka xaggooda usoo hijrooda bay jecel yihiin marka karamkooda iyo sharaftooda ayay ka mid tahayoo muhaajiriinta way soo dhoweynayeen marba qof ka yimaada culays baad nagu soo kordhiseen iyo hantidii baad nagu qabsateen iyo deegaankii baad naga buuxiseen iyo waxaasoo dhan ma laha wey sidoo kale waxay ahaayeen dadaan xaqdi iyo xasad midna lahayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeedhay ansaar si uu u siiyo xadiiska bukhaari baa warinaya baxrayn maalulbaxrayn inuu iyaga u gooyo ansaara intan idinka iskale mase waxay laa ilaa an taqtaca liikhwaanina almuhaajiriina midlaha walaalaha iyo muhaajiriinna intaan in lagu jarta mooyaane gaar annaga noogu jiray maysid bay dhahay markaasuu rasuulku wuxu uhi amaa laa fasbiruu haddaad diideen inaan idin siiyo baxrayn iyo hantida iyo maalkay taalla fasbiruu sabra xataa talqawnii ilaa aad ila kulantaan fa inahu sayusiibukum athara eex baa idinku dhici doonta iyo dulmi baa idinku dhici doona iska sabra bu nebigu yuri alayhi salaatu wasalaam halka marka waa la leeyahay walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wixii la siiyey ansaarta muhaajiriinta iyo ansaar marka waxaa laga qaadanaya aayaddan in muhaajiriinna fadli badan tahay laba arrimood boo laga qaadanayaayo xagga sheegidda iyo soo hadalqaadka dee muhaajiriin baa la horreysiyey alfuqaraa'i almuhaajiriina baa ka bilaaba xagga kalena dee iyagu ma dareemayaan xasad iyo xaqdi iyo xaaja mima uutu wax muhaajiriin la siiyey oo fadli ah kama dareemayaan iyo fadliga iyo dheeraadka la siiyey muhaajiriinta la fadilay ma xaasidayaan taasna dee waa aayaddaba ka muuqataa waxaa kaloo lagu sheegay mansilada iyo sharafta iyo ka horumarinta kuma xaasidayaan sidoo kale maalka iyo hantida kuma xaasidayaanoo dee markii fuqarada la yidhaha loo qaybiyo ansaarta laba nin unbaa wax laga siiyey oo sahl bin xunayf iyo abudajaana labadaa nin unbaa xoolihii fayga laga siiyey oo fuqara ahaa marka iyaga dee hantidooda loo tala saartay maalkii iyo hantidiina waxaa loo wareejiyey muhaajiriin marka hantida muhaajiriinta loo qaybiyey waa walaalahooda kuma xaasidayaan waxba uma arkaan xaasidnimada in qofku aanu xaasid ahayna waa fadli dheeraad ah oo kii nabigeenu alayhi salatu wasalaam sheegay 3 maalmood maalin walba yidhi albaabka waxaa ka soo gelaya nin ahlu janna ah kadibna nin garhkiisa weysadu ka da'ayso oo kabihii gacanta ku sitaa
ayaa 3 jeerba soo galay markii la dabagalay cabdillaahi dabagalay ee la waraystay wuxuu ku mutaystayna waxay noqotay inaanu cidna waxba u qabin wuxuu leeyahay ghayra annii laa ajidu fii nafsii liaxadin min almuslimiina ghishan walaa axsudu axadan calaa khayrin actaahu allahu iyaah qofna ma qisho ma khiyaameeyo qofna khayr alla siiye kuma xaasido buuri qalbi wanaagga markaa reero janno ayaa lagu noqdaa lagu mutaystaa walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu oo amwaalu bani nadiirna waa lagu sheegay fadliga dheeraadkaah kale lagu sheegay lagu ammaanay ansaar waxa weeye wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooda ayay ka doorayaan iithaar baa la yidhahda iithaar iyo athara iska soo horjeeda athara waa qofku inuu wixii eexdo oo qaato dulmiyo iithaarna waa inuu wixii isdhaafiyo oo isagoo u baahan cid kala siiyo marka wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa iyagoo baahi u qaba khasaasana waa baahi daran iyagoo u qaba marka iyagoo u baahan bay isdhaafinayeenoo markii loo soo hijrooday waxay odhanayeen rasuul allo maalka annagii muhaajiriin waa noo qayb ha lanoo qaybiyo markaasuu rasuulku yihi maya markaasi waxay dhahan haddaba waaye ha nala shaqeeyeen hantidana waa siinayna marka saasay hantida iyo maalka walaalahood ula qaybsadeen oo u siiyeen wey sidoo kale axaadiista waxaa ku sugnaaday in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu markii muhaajiriin iyo ansaar u walaaleeyey in qof waliba kii la walaaleeyey uu maalkii ay siiyeen oo dumarkii iyo maalkii iyo guryihii iyo beerihii iyo mid walba ay usoo bandhigeen arrintan marka waa qadiyad dheeraada qof isagoo wixii u baahan inuu isdhaafiyo oo cid kala siiyo waa fadli dheeraada wey afdalu sadaqati juhdu lmuqil waxaa sadaqa ugu fadli badan dadaalka uu qof hantiyaroowe uu bixiyo iyagaana ka fadli badan kuwii alla uu ku sheegay wayudcimuuna aطacaama calaa xubi iyagoo jecel bay xoolaha bixinayaan iyo wa aata almaala calaa xubi marka kuwaasi maalka way jeclaayeen laakiin kuwani jacayl keliya maahee baahi iyo khasaasay u qabaan waa u baahan yihiin waa u dhiban yihiin bay isdhaafinayaan qisooyinka cajiibkan waxaa ka mid ah imaam bukhaari xadiiska uu warinayo can abi hurayra nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam rasuul allow waa dhibaato iyo waxbaa igu dhacay iyo jahdi iyo gaajo kadibna rasuulku alayhi salaatu wasalaam xasaskiisa wuu cidiray markaasa waxba laga soo waayey markaasuu yihi war ninka yaa iga martigelinaya caawa kadibna nin ansaar ka mid a yidhi ana yaa rasuul allah kadibna gurigiisii buu la aaday reerkii buu u tegey xaaskiisii buu ku yihi marti qofka ninkan ila socdaa waa marti rasuul waxba ha ka kaydsan waxaad hayso markaas tihi intii carruurtu cuni lahayd mooyaane cashadoodii wax kale ma hayo markaasuu yihi haddaba waa yahaye carruurtana seexi faynuuskana gaabi iyo iftiinka inaguna aan caawa iska gaajoonno oo iska seexanno kadibna saasaa waxaa lagu siiyey hantidii cuntadii dayfkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadibna aroortii rasuulku wuxuu yidhi laqad cajiba ninkii markuu u yimi laqad cajiba allahu caza wajalla min fulaan wa fulaana hebel iyo heblaayo ilaahay waa la yaabay waa ku qoslay arrintoodii iyo siday ahaayeen marka waa fadiila weeye dheeraada ansaartu ay lahaayeen weye radia allahu canhum waardaahum waxaa la yidhi waman yuuqa shuxa nafsi qofka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftiisa fa ulaa'ika hum almuflixuun waa kuwa liibaanay oo shuxu waa naftu inay wax ku adag tahay wax walba ilaashanayso haddii markaa laga siibo oo hantidii iyo maalkii ay bixiso bakhaylnimadii ka tagto sidoo kale wixii ilaahay amray daacaana way la imanaysaa haba cuslaatee macaasida iyo dunuubtana way iska daynaysaa way ka sabraysaa ile naftii waxay noqotay naf aan ku dheganayn waxay doonayso oo waxa weeye saamixad ah marka waxa weeye shuxu waa in qofku laga siibo waa wax fiican wey abilhayaaj alasadi wuxuu yidhi anoo beyt ka dawaafaya ayaan waxaan arkay nin ducaysanaya allahuma qinii shara nafsii shuxa nafsii ilaahu shuxa naftayda iga ilaali markaasaan ku yihi intaa waxba ku dari maayo war waa maxay markaasuu wuxuu yidhi haddii layga ilaaliyo waxna xadi maayo sinaysan maayo waxba samayn maayo waan fiicnaanaya ninkii baan eegay mise cabdiraxmaan bin cawf radia allahu canhu wa ardaah qofku hadduu sekada maalka ka bixiyo oo martida sooro oo masaa'ibta ka qayb qaato dejinteeda waa ka beri noqdeen shux wey والذين جاءوا من بعدهم وقالوا صدحات وي ويجنا لسين كرو صدقدي iyo xaleeyahay faygi la siinayo والذين kuwa جاءوا yimi من بعدهم مهاجرين أنصار dabadood يقولون waxay oranayaan rabbana ya rabbana rabbiyow اغفر noo dhaaf lana anaga noo dambi dhaaf waliikhwaanina walaalahayana u dambi dhaaf الذين kuwaasoo sabaquuna nooga hormaray oo nooga horeeyey biliimaani iimaanka waa wadaagnaa laakiin way nooga horeeyeen iyagu iimaanka sana xidhiidhsiinaya oo nasab iyo qaraabo iyo wax lagu xidhiidho noo ah walaa tajcal ilaahu ha yeelin fii quluubina qalbiyadayada dhexdooda ghilan ay xaqdi iyo nacayb iyo cuqdad ha u gelinin liladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey mu'miniinta ah rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innaka adigu ra'uufun alla tudhid badan baa tahay raxiimun naxariis badan
ee tudhaalahaaga iyo naxariistaada na siiyo ilaahayow xaqdiga iyo cuqdadana naga saar noona wada dembi dhaaf wey. halkaasna alle subxana wa tacala wuxuu tilmaamay dee dadka wanaagsane waa qismiga saddexaad ee maalka fayga wax ku yeelanaya waa dadkii aahaarta wanaagsan ku raacay muhaajiriin iyo ansaar wey oo tilmaamahooda wanaagsan ee sirtooda iyo calaaniyadooduba ay tilmaamayso isku midow wey. imaamu maalik wuxuu halkan kala soo baxay raafidada cayaysa asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam in aanay fayga waxba ku yeelanayn sababtoo ah dee waxa weeye kuma sifoobin sifooyinkii cidda fayga wax laga siin doono. caaishan radi allahu canha waxay tidhi umirtum bilistikfaari liasxaabi maxamed fasababtumuuhum waxaa laydin amray inaad dembi dhaaf ilaahay u weydiisaan asxaabi maxamed kadibna waad caydeen. waxaa nebigiina ka maqlay isagoo leh ummaddani tegi mayso ilaa kuwooda dambe kuwooda hore lacdalaan. cumar bin khadaab amiiru lmu'miniin markii sawaad ulciraaq hantida badan ee ciraaq la qabtay ee lagula dooday ee la yidhi waa qaybsanaynaayoo mujaahidiinta qaybsanaysaa wuxuu yidhi jiilasha dambe haddaad idinku qaybsataan maxay helayaan. arrintaas markaa waa diiday oo xoolahaas in waqaf laga dhigo ayuu oo masaalixda guud iyo baytulmaalka hoos tagaan ayuu amray. kadibna waa tii bilaal la dooday aad ula dooday ee uu yidhi allahuma kfinii bilaalan. marka waxyaabihii markii dambe uu soo deliishaday wuxuu war waa helay daliilikii markaasuu wuxuu yidhi wuxuu akhriyey inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin xoolaha cidda la waa la yaqaana waa xoolihii sekada. waclamuu ana maa ghanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba xoolahana qaniima waa la yaqaanaa. wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab. wuu soo waday markaasuu yihi yaa iskale xoolahaas lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim. haye markuu soo waday yaa kaloo leh waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim. yaa kaloo leh waladiina jaa'uu min bacdihim. markaasuu wuxuu yihi wataasoo dee jiilashii dambe maalkan qayb bay ku leeyihin. haddi markaa idinka laydin qaybiyo oo idinku kala dhaxashaan jiilashii dambe qaybtoodii waayaya. sidaa daraaddeed xoolahan baytulmaalka muslimiinta hoos tegayaan jiilba jiil ayuu gaadhsiinayaa oo xoolahan ay gaadhayaan. saas ayuu u deliishaday waana daliil fiican wey. waladiina kuwa jaa'uu yimi min bacdihim iyaga dabadood yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa noo dhaaf annaga ilaahu noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalahayana u dembi dhaaf aladiina kuwaasoo sabaquuna nooga horreeyey biliimaani iimaanka walaa tajcal ha yeelin fii quluubina quluubteeda dhexdooda gilan xaqdi iyo nacayb iyo cuqdad ha u yeelin liladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey aanu cuqdad u qaadno ama kuwii naga horreeya ha ahaadeen ama kuwa nala joogaba ha ahaadeene rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow innaka adigu ra'uufun alla tudhid badan baa tahay raxiimun naxariis badane tudhaalahaaga naxariistaada ilaahuna sii weeye. rabbanaa aatinaa fi dunya xasana fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar sala allahu wasalam calaa sayidina wanabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.